السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة السوداء واضح أدي هذا ومهتسنتهين. maanta waa khamiis waana 28 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa qofkii shalay weeraray kaniisad uu iskuul ku dhex yaalo ku taala koonfurta magaalada Minneapolis oo laba arday ay ku dhinteen 17 kalena ay ku dhaawacmeen. qofkaasi waxa uu ahaa qof markii hore rag ahaan ku dhashay laakiin magaciisa bedeshay oo magac dumar la baxay ilaa ay hadda muuqaalada la helay iyo maxay cadeynayaan ayaan rabaa inaan idin la wadaago. sidoo kalena waxaa jirta in nin Uber driver ah oo la leeyahay wadanka sharci darro ayuu ku joogo wadanka Ruushka ayuu ka yimid ayaa qof soo dalbaday markii uu u yimid wuxuu arkay qofkii uu ay wato markaas kadibna meeshii wada hadal ayaa ku dhaxmaray ninkii teesta iyo feer ayuu ku dhuftay isagoo dhulka ku dhacay qofkii passengerka oo dhiig ka socdo ayuuna ka dhaqaaqay. hadda ninkii waxa uu dacweynayaa shirkadda Uber iyadoo ninkii dhibaatadaasi geystayna uu xiran yahay. sidee arrimahaasi ku dhaceenna waan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada. waxaan ogeyn galinkii hore abaara 2 saac ilaa 2 saac iyo bar intuu dhaxaysay in kaniisad la yiraahdo Annunciation Roman Catholic Church oo iskuul uu ku dhex yaalo in uu weeraray qof isla markaana uu ku dilay 2 arday 17 kale oo 14 arday ay yihiinna uu ku dhaawacay. haddaba faahfaahin ayaa qofkaasi ka soo baxaysa. sababta aan qof ugu yeeray waxay tahay wax uu yahay inagu ma naqaano maxaa yeelay markii hore rag ahaan ayuu ku dhashay laakiin magaciisa magac dumar ayuu la baxay inta uu maxkamad tagay. arintaasi iyo sababaha ay ku dhacdayna waan idin la wadaagayaa. ninkan waxaa la oran jiray Robert. dadkii sanadkii 2017 qalin jabiyay ayuu ahaa. sida aad ka aragtaan magaciisa Robert ayaa la dhihi jiray laakiin waxa uu qofkan doonay in uu dumar iska dhigo oo transgender uu isbedelo. wadamadan qurbahan waan ognahay daawooyin waxyaabo la qaataa jira. qof rag ahaa dumar iska dhigayo qof dumar ahayna rag ayuu iska dhigaya. markaas kadib sanadkii 2019 ayaa maxkamad ku taala degmada la yiraahdo Dakota County waxa uu ka xareystay in qofkan uu doonayo magaciisa Robert ahaa inuu u bedelo Robin isla markaana codsigaasi ayuu xareystay. hooyadii Mary maadaama xilligaasi 17 jir ah uusan qaan gaarin qof u saxiixa ayaa loo baahan yahay. hooyadii oo magaceeda la yiraahdo Mary ayaa u saxiixday codsiga ama application-kaasi waxaana codsigiisa laga ogolaaday bishii January ee sanadkii 2020. qofkaasi oo magaciisa Robert la dhihi jirayna waxaa loo bedelay Robin Westman ayaa loo bedelay. hooyadii kaniisadan uu shalay weeraray oo iskuulka uu ku dhex yaalo ay muddo 6 sano ka shaqeynaysay. sanadkii 2021 ayayna shaqada ka fariisatay. waxaa xitaa la helay waraaqihii codsiga application-ka in qoyska uu ku bixiyay lacag gaaraysa $311 in qofkan magaciisa Robert ahaa Robin loogu bedelo in lacag intaasi leeg ay ku bixiyeen. marka waxaa hadda la ogaaday 3 qori oo shalay watay qofkan uu kaniisada banaankeeda intuu istaagay daaqada ka soo xabadeeyay 3 qoriba si sharciya inuu ku iibsaday. Mareykanka qofku haddii uusan wax dambiye lahayn 18 uu gaaro qorigii uu rabo ayuu iibsan karaa. marka si sharciya ayuu ku soo iibsaday. waxaa sidoo kale boolisku baaritaanka ay ku heleen in ninkan muuqaal 20 daqiiqo uu iska duubay habeen hore intii uusan toogashadan shalay subaxdii uusan geysanin. marka YouTube-ka ayuu waqti ku xiray. YouTube-ka waxaan ognahay muuqaalada qaar waqti ayaa lagu xiraa xilligaas ayuu soo gelaya. marka waa uu waqtiyeeyay waxa uu doonayay toogashada markii uu geystay kadib muuqaalkaasi inuu YouTube-ka uu soo galo. marka muuqaalkaasi waxaa lagu arkayaa in kaniisada inta uu sawiray oo gacanta ku sawiray haddana midi uu ku garaacayo rasaas uu haysto oo intuu dhulka ku daadiyo haddana gacantiisa uu ku soo qabanayo isla markaana qoryaha intuu kala furfuray qoryaha sida oramaariga u dhaca in magacyo uu ku dul qoray iyo qoraallo uu ku dul qoray qoryahaasi dushooda. marka waxa uu leeyahay xitaa muuqaalka laga dhex maqlaya waxaan doonayaa inaan istilo isagoo dhahaya. marka waxaa sidoo kale qoryaha qaar ku qornayd in xitaa uu doonayo in Trump la dilo. Trump waxaan ognahay markii la doortay waxa uu ka soo horjeestay wuxuu yiri anigu wax rag iyo dumar u dhaxeeya ma garanayo dadkan in qoomuluudka iyo dadkan isbedelay xitaa ciyaaraha gabdhaha ragii ciyaari jiray oo dhahaya gabdhaha ayaa isku bedelnay waa kii ka saaray ciidamada waa kii ka saaray lacagihii waa kii joojiyay lagu bixin jiray oo gobolada ay ku bixin jireen oo yiri xitaa gobolkii isku daya in haweenka sportiga ama ciyaaraha ay ciyaarayaan rag ku dhex daraan lacagaha dowladda federaalka ay siiso waan ka jaranaya. marka
qaabkaasi inuu ugu caraysnaa maadaama qofkan uu yahay qof isbedelay oo rag ahaan jiro oo dumar isku bedelay inuu Trump sidaasi ugu caraysnaa ayaa loo filaya marka barihiisii bulshada hadda waa la xiray muuqaaladii uu duubayna boolisku baaritaano kala duwan ayay ku sameynayaan qoraallo uu qoray ayaa sidoo kale la helay oo la leeyahay af ruush iyo af englishba waa uu ku qoray xitaa midka ruushka uu ku qoray waxa uu leeyahay waxaan rajaynayaa inaad akhrin doontaan qoraalkan marka qoraaladaasi waxaa ku qoran in uu leeyahay ma wanaagsani ma saxsani waxaan ogahay in arrintan ay qaldan tahay laakiin isma xakamayn karo qoraallo noocaasi oo kale ah in qoraalada dheer oo ilaa 4 ilaa 6 bog ka kooban qaarkood uu halkaasi ku qoray marka gurigiisa xitaa ma uusan ka fogeyn kiniisadda uu weerarka ka geystay wax ka yar 1 mayl ayuu u jiray boolisku gaarigiisii ayay heleen oo xitaa baaritaan weli ay ku sameynayaan FBI-duna waxay xaqiijiyeen in hadda ay u baarayaan weerarkaasi inuu yahay weerar argagixiso oo gudaha qaab noocaasa inay u baarayaan sawirkan ayaa salay caanbaxay markii la arkay maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo jaranjarada kiniisadda laga gala fadhiya isla markaana gacmihiisa intuu isku qabtay afka ku qabtay isla markaana qof aad u murugsan oo muuqdo shalay markii uu hadlayena xitaa waa uu ilmeynaya arrintan si aada ayuu uga xumaaday marka boolisku baaritaankooda weli waa wadaan laakiin ilaa iyo hadda inta laga ogaaday waa intaasi sheekadan aan idinla wadaago marka dadka Uberka wada waxaan ognahay dadka qaar waxa ay wataan eeyahaasi waxa la yiraahdaa service dog waa qof shaqo ku jira oo kale ama qofku waa indhala yahay ama xaalad caafimaad ayuu qabaa oo eegan waxa loo tababaray qofkaasi xaaladda caafimaad markay ku dhacdo inuu gurma degdega u fidiyo ama dad kale uu waco ama haddii uu guriga joogana loo tababaray inuu daawadiisa iyo biyo u keeno oo siiyo marka haddii adigoo Uber ama Lyft wada qof ay noocaasi wata aad tiraahdo kuma qaadayo waxa ay tahay inaad qof shakhsiya diiday inaad qaado isla markaana abkaada waa laga xiranayaa waxaana laga yaabaaba in arrintaasi dacwad lagula tiigsado marka ninkan Uber ayuu dalbaday sheekadan waxay ka dhacday magaalada Charleston ee gobolka South Carolina 24 bishii Abriil ayayna dhacday laakiin muuqaaladan ayaa hadda soo shaac baxay oo ninka dhibka loo geystay waxa uu dacwad la tiigsanayaa shirkadda Uber ninka arrintu ay ku dhacday waxa la yiraahdaa Brian Cober oo passengerka ahaa oo iga watay Uber ayuu dalbaday xilli casho uu ka soo baxay Uberkii markii uu yimid waxa waday nin wadanka Ruushka ka yimid oo la leeyahay wadanka sharci darro ayuu ku joogay magaciisa Fadim ayaa la yiraahdaa 42 jir xitaa qareenka u doodaya ninka dhibanaha waxa uu leeyahay laysanka uu watay ma ahan laysan sax ah walow qareenka u doodaya ninka Uberka wada uu leeyahay laysankiisu waa sax isla markaana muuqaalka la soo bandhigay kama turjumayo sheekada labadan qof dhex martay marka ninka Uberka waday markii uu ninkan u yimid waxa uu yiri eeygaada ma qaadayo marka sida aan ognahayna dadkan eeyahooda inta badan waa eeye edeb leh qofka isaga ayaaba korkiisa ku haysanaya xitaa gaarigaada ma dul saarayaan marka waa uu diiday kulay sheeka ayaa dhex martay waxaa la arkay marka ninkii Uberka waday oo inta gaariga uu ka soo degay ninkii oo eeygiisa korka ku haysta oo taagan intuu teesta ku dhuftay feerna u raaciyay qofkii dhulka uu ku dhacay waliba gadaal intuu ku dhacay madaxa qaybta dambe oo dhulka ku dhufsaday isagoo dhiig ka socdo ayuu gaarigiisii ka dhaqaajiyay oo ka tagay ninku waxa uu leeyahay 7 qodob ayaa la iga talay arrintaasina maskaxiyan ayay xaalad caafimaad igu keentay marka dad ayaa u soo ordaya oo booliska 911 u wacay xitaa waxa la arkayaa sida aragtaan nin cadaan oo gaarigu markii uu sii dhaqaaqayay taargadiisa ama number platekiisa sawir ka qaadaya marka ninkii waa la xiray gaariga waday Uberka waa nin wadanka Ruushka ka yimid $10,000 oo damaanad ah ayaa lagu soo dayn karaa waxaana ay wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay ninkan inuu wadanka sharci darro ku joogay marka ninkii dhibanaha oo la yiraahdo Brian Cober oo nin ka shaqeeya shirkadahan waaweyn ah waxa uu yiri Uber ayaan uu dacweeyay sida qareenkiisa uu sheegay waxaana uu sheegay in faa'iido ay ka doorbideen badqabka dadka gawaaridooda raacaya sidaas darteed dayacad ayay sameeyeen ninkii Ruushka u dhashay oo gaariga waday oo Fadim oo Uberka darawalka ka ahaa abkiisii 48 saac ilaa 72 saac kadib hawada ayay Uber ka saareen Uberna waxay yiraahdeen dacwad socota ma doonayna inaan ka hadalno marka dadka Soomaalida ah ee Uberka wada ama Lyftiga wada haddii qofkan ay uu wato aygan inta badan haddii uu soo haran waayo waan ognahay laakiin haddii uu qalalan yahay dadkuna inta badan korka ayay ku haystaan uma malaynayo inay dhibaato u keenayso in gaarigooda marka sidaas darteed dad fara badan oo Soomaaliyeed hore waa ugu dhacday waa laga xirtay abkooda inta ay diideen qof eeyaha noocaasi wata marka ayga service dog ah waa qof shaqo ku jira oo kale waayo waa kuwa la tababaray
oo dadkan ama xaalad caafimaad ay qabaan ama waa indhala yihiin ama sidoo kale qaab kale ayay u wataan xayawaanku waxay u kala baxaan in service dog uu yahay inay caadi uu yahay oo qofkuna iska haysto iyo emotional animal inuu yahay oo qofkanba uusan ka maarmin hadduu xayawaankan uu waayo uu emotional uu iska noqonayo walwal iyo wax dareemayo marka ninka hadda weli waa xiran yahay $10,000 ayaa lagu soo daan karaa arrintuna waa ay socotaa oo Uber waa la dacweynaya oo ninkan waa uu dacweynaya waxyaabaha ka soo kordho wayna arki doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo